dherigii sixirka ahaa. Sheekadan waxay ku saabsan tahay nin beeraley ah iyo dherigiisa sixirka ahaa. Tuulo fog ayaa waxaa ku noolaa nin beeraley ah oo lagu magacaabo Rama. Rama wuxuu ahaa nin fiican oo aqli badan, wuxuuna lahaa beer weyn. Hase ahaatee, wuxuu ahaa beeraale fiican, laakiinse beertiisa weligiis wax miro maysan u dhalin. Halka beeraleyda kale ay beerteen ayna gurteen. Rama mar walba wuu qodi jira, laakiinse beertiisa qaleel ayay ahayd. Rama, maxaad mar walba u qodaa? Beertan wax dalag xitaa may ka soo bixin in laga joogo sanado. Waa inaad iska gadaa beertan oo aad gadataa beer fiican oo ku taala meelo kale. Alla walaalo, beertan waxaa iska lahaa awowyaashayda, waxayna ku beeran jireen caradan badan. Waxaan u malaynayaa inaan qalad sameynayo, waa inaan isku sii dayaa. Nasiib wacan ayaan kuu rajeynayaa walaal. Rama muuse rabin beertiisa inuu ku dhiibo beec kasta. Maalmo ayuu cunto la'aan ahaa, wuxuuna cunaya miro si uu gaajada iskaga bi'iyo. Maalin walba wuu tagi jiray wuuna qodi jiray, wuxuuna yiri maalin walba waan qodayaa ilaa aan ka fahmo waxa ay beertayda miro u dhalin. Sanad walba waa beeraa, laakiinse miraha xaggee aadaan? Rama wuu qoday oo wuu qoday. Aad baan u daale. Rama wuxuu qoday beertii oo dhan. Waxay ahayd goor dambe markii Rama uu ku fikiray inuu nasto. Rama aad ayuu u gaajaysanaa inuu sii wado qodida. Markuu joojin rabo qodida, ayaa qodadii waxay ku dhacday wax dhulka hoostiisa ku jira. Waa maxay waxaan sida birta u shanqaraayo? Waa dheri weyn. Taasi waa wax lala yaabo. Yaa ku duugi kara dherigan birta ah beerta hoosteeda? Tani waa nacasnimo. Rama aad ayuu u xanaaqay maadaama uu ku dhumiyo xooggiisa oo dhan waxaan waxba ahayn. Qodadiisa ayuu wuxuu ku dhex tuuray dherigii birta ahaa. Wuxuu fariistay geed hoostiisa, wuxuuna yiri waxaan u malaynayaa inaan beertan iska gadaayo, waayo maalin walba gaajo kuma joogi kari. Beertan weligeed waxba ima siinayso. Rama wuxuu ku nastay geedkii hoostiisa. Wuxuu cunay mirihii uu soo gatay. Aad ayay ugu yaraadeen marka loo eego gaajada haysa Rama. Wuxuu fadhiyay meeshaas in ka badan saacado asagoo ka fikiraya beertiisa oona ka murugaysan. Wuu ogaa inuu beertaas iska dhiibayo, wax doorasho ahna muusa lahayn. Waa inaan is adkeeyaa hadda. Beertan dhaxalka waxba iima tarayso, waa inaan guriga aadaa intaysan habeenigu noqon. Beertan dhaxalka waxba iima tarayso, waa inaan guriga aadaa intaysan habeenigu noqon. Rama markii uu aaday inuu ka soo baxsado qodada dherigii, wixii uu arkay wuu la yaabay. Maxay tahay? Yaa waxaan meeshii igu riday, maanta dhan halkan ayaan joogay. Rama wuxuu arkay dherigii oo ku jiraan 100 xabo oo sabarad ah. Mana uusan ogaan karin midda asaga uu lahaa. Sidaan suurtagal ma ahan, dherigan ma dheri sixir baa? Waa inaan wax isku dayaa. Rama wuxuu ka soo bixiyay dherigii 100 xabo oo sabarada ahaa. Rama dherigii wuxuu ku dhex riday 1 xabo oo canab ah, laakiinse indhihiisa wuu aamini waayay. 1 xabo canab ah waxay isku bedeshay 100 xabo oo canab ah. Tani waa xaqiiqo, dherigani waa dheri sixir ah. Tani ma aamini kari. Dherigani waa inaan xaafad u qaataa. Alla waa culeys, waa inaan u raadsadaa xarig. Rama wuxuu dherigii afka uga xiray xarig, wuxuuna ku sii xiray dhexdiisa, kadibna wuxuu u jiiday xaafadii. Markii uu xaafadii soo gaaray, Rama wuxuu ka fikiray waxa kale uu ku ridi lahaa dherigani. Marka ugu horeysa waa inaan ku ridaa ukun. Aad ayaan u gaajaysanahay. Maanta dhan waxaa cunayay fruit oo kaliya. Rama dhaqso wuxuu aaday suuqa. Lacagtii uu hayana wuxuu ku soo gatay xabad ukun. Kadib ukuntii wuxuu ku riday dherigii. Wax yar kama soo wareegin, dherigii dhan waxaa buuxsantay ukun. Ram aad ayuu u farxay. Nafsadiisa wuxuu u korsaday 2 ukun ah. Wuxuuna dhahay weligay wax saan u macaan ma dhadhaminin. Maxaan ku sameeyaa 98 ukun? Waa inaan iibiyaa, lacagna aan ka helaa. Rama wuxuu garwaaqsaday dherigani inuu siin karin wax la cuno oo kaliya, laakiinse xitaa uu siin kara lacag.
markii ukuntii uu iibiyey Raamaa, dherigii wuxuu u isticmaalay waxyaalo kala duwan. Markuu Raamaa dhar u baahdo, wuxuu dheriga ku ridi jiray hal maro. Dherigana wuxuu soo saari jiray maro weyn oo u noqoto 15 qof dharkooda. Markuu ku rido dheriga shaati isqabo, wuxuu soo saari jiray 100 shaati. Laakiin markaan Raamaa wuxuu ku ridi jiray dheriga qudaar iyo badar. Dadka tuulada deganaa waxay la yaabeen ninkan beeraleyda horumarkiisa. Hase ahaatee, hal qofna runta ma ogaanin. Raamaa dheriga meel fiican ayuu ku qarin jiray, wuxuuna geliyay guriga laabkiisa, wuxuuna kor saaray maro. Maalin ayuu Raamaa wuxuu isku dayay inuu tijaabiyo dherigiisa. Wuxuuna soo qaaday hal digaag ah, wuxuuna ku dhex riday dherigii, wuuna sugay wixii dhici doona. Kadibna dherigii waxaa ka soo baxay 100 xabbo oo digaag ah. Gurigiisa oo dhanna waxaa qabsaday digaag. Alla, maxaan ugu ridi waayey malay dhintay? Waxaanoo digaagad sidaan u qaban doonaa hadda? Raanaa wuxuu ka daba orday digaagadihii inuu qabto, laakiinse aad ayay u badnaayeen. Qaar waxay fuuleen miiskiisii, qaar waxay ka fuuleen madaxa, qaar waxay fuuleen meel kasta. Kulligiin inta imaada. Digaagadihii way cabsadeen oo meel walba ayay daadsanaayeen. Maya isug, mid ayaa duushay waxayna dhex gashay dherigii. Mar labaad ayaa meeshii waxaa ka soo baxay 100 xabbo oo digaaga. Allah, gurigeyga wuxuu noqday meesha digaagadaha lagu xanaaneeyo. Allah, maxaan sameeyaa? Raamaa wuxuu qaaday digsigii, wuuna daboolay, wuxuuna dhigay guriga luuqiisa. Raamaa guriga banaankiisa ayuu u cararay, wixii digaagad ahaana way raaceen, wayna la yaabeen dadkii deganaa xaafadda. Markay arkeen digaagadahan saan u badan oo Raamaa dabayaacayo. Allah, waa digaagada badan, waa inaan dherigan u isticmaalaa si maskax ah. Raamaa waxba ma u dareensaneen, laakiin waxaa dhegaysanaya boqorka shaqaalihiisa, wuuna maqlay sheekada digsiga. Wuxuuna u cararay boqorkii, wuxuuna u sheegay sheekadii oo dhan. Waxaasoo dooro ah miyaa halkaas digsi ka soo baxeen? Say macquul ku tahay? Waxaan u maleynayaa digsigaasi waa digsi sixir ah. Waa inaad ii keentaan digsigaasi iyo Raamaa halkan. Digsigaasi waxaa iska leh boqortooyadeyda. Raamaa wuu ogaa sababta uu boqorka u weydiiyey digsigaani, waayo boqorka wuxuu ahaa mid dhuuni ah. Waxaa dhici karta digsiga iyo hantida inuu kaligiis isku rabo. Raamaa wuu u keenay digsigii. Laakiinse digsigan siduu ku dhalay waxaanoo digaagad ah? Waa inaan fiiriyaa digsigan gudihiisa waxa ku jiro. Allah, maya boqorow, sidaas ha sameynin. Laakiinse boqorkii si dhaqso leh ayuu digsigii u fiiriyey, kadibna wuu ku dhex dhacay. Hadda digsigii waxaa ka soo baxay 100 xabbo oo boqoriin ah. Ka hor intaysan qofba hadlin, waxay bilaabeen inay isdagaalaan. Qofna kuma fadhiisan karo, kaasi waa boqortooyadeeda, anaa iska leh, anaana ah boqorka meeshaan. Hoolkii dhan waxaa buuxsamay boqoriin. Boqorka badbaadi. Haa, laakiinse keebaa ah boqorkeena? Laakiin shaqaalaha meesha maysan garanaynin boqorka runta. Wax yar kadib, boqoradii dhan way isdildileen. Qasrigiina wax maamulo muusa lahayn. Raamaa wuxuu ogaaday khatarta uu leeyahay digsigaani. Raamaa wuxuu ku soo orday dherigii, kor ayuu u qaaday, dhulka ayuuna ku dhuftay, wuu jebiyey, wuuna ka xumaa inuu waayo dherigiisa sixirka ah. Laakiin hadda Raamaa wuxuu haystaa beer baxaysa, wuxuuna bilaabay inuu falo, wuxuuna ku noolaa nolol uu ku qanacsan yahay. Halkaas ayay ku dhammaatay. Daawadayaal, waad mahadsantihiin. Channelkayga subscribe. Asxaabta channelkayga waxaa idinka codsanayaa inaad subscribe ii saartaan, like iyo share asxaabtiina u gudbisaan. Waa ku mahadsantihiin. Xoogaa sheekada waa idinku dheereeye, laakiinse waxaan aaminsanahay inay tahay sheeko aad ka heli doontaan. haddaad ka heshaan fadlan commentiga ku reeb.